kulanka maanta uu yeeshay baarlamaanka koonfur galbeed Soomaaliya ayaa waxaa soo xaadiray 137 mudane iyadoo kulanka uu shir gudoominayay gudoomiyaha gomeelgaarka Cabdullaahi Aadan Mursal waxaana musharaxiintii u taagnaa qabashada xilalka gudoomiyaha iyo gudoomiye ku-xigeenada baarlamaanka koonfur galbeed Soomaaliya ay halkaasi ku soo bandhigeen taariikh nololeedkooda iyo waliba waxqabadkooda markii la doorto waxaa gudoomiyenimada u sharaxnaa Cali Xasan Cusmaan iyo Cabduqaadir Shariif Sheekuna Maye gudoomiye ku-xigeen waxaa u sharaxnaa Maxamed Nuur Maxamed iyo Ibraahim Aadan Buule halka gudoomiye ku-xigeenka labaadna uu u sharaxnaa Aweys Xuseen Macalin ugu horeyn waxaa waxqabadkiisa halkaasi ku soo bandhigay Cali Xasan Cusmaan iyo Cabduqaadir Shariif Sheekuna Maye oo labadaba u sharaxnaayeen gudoomiyaha baarlamaanka koonfur galbeed Soomaaliya dugsiga sare iskoolka raagugaas naga timid tagaana waaga waxbarashada muddo aan ahay jaamacadda ummadda Soomaaliyeed ka baxay halkaas markaan ku soo koobo waxbarashadayda intaas aan fududeeyo waxaan galay shaqadii qaranka waan soo maray meesha service macallin aan soo noqday balbeelka soo noqday saddex guri magaaladii marka hore waa kamid luqadahan ku hadla waa Talyaani Carabi Ingiriisi iyo Sawaaxili iyo Soomaali maay iyo maxaatiri maay hadda waxaan ku hadlaa maxaatiri maay koob iyo karo intaas markaan ka baxo reer baan leeyahay 8 carruur ilaahay waa siiyay alxamdulillah waxaan u soo shaqeeyay hay'ad Jarmal RDGS la dhaho isku duwa waxaan ka ahaa loo jiro xubin bahiiraan waxaan ka soo shaqeeyay wakaaladda dhismaha Soomaaliyeed Seedco shirkad joint venture ah Shiinaha jidka afgooy beedhaba wax ka soo dhisay waxaan ka soo shaqeeyay wasaaradda beeraha Kabtalaas yaa mashaariic ka fulay waxaan dhisay jidkan awdi la baadhe waxaan ka soo shaqeeyay balaarinta dekada Kismaayo waxaan ka soo shaqeeyay guryaha Soomaaliya ee la isxamar ku yaal jidka Muqdisho ku yaal intooda badan yaan soo dhisay bay project wax ka dhisay dibadana waxaan ka soo shaqeeyay Kenya Tanzania Zambia Zaire ana wata company transporter waxaan ka soo shaqeeyay kale United Arab Emirates Dubai waxaan ahaa export and import for the 5 years there intaas markaan ku soo gaabiyo waxaan rabaa inaan ka hadlo akhlaaqdayda shakhsi ahaan waxaan ahay iyo waxaan mar walba ku dadaalo inaan maqlo haddii ilaahay xoogoo af carabi waa ku sheegayaa af Soomaali waa ku tarjumi doona haddii ilaahay almacrifatu rasmaali macrifadayda wejigayga waa baasaboorkayga afiqatu kinsi khasnadayda waa kalsoonidayda khasnad bay intaa kalsooni buuxdaan isu qabaa الحسن رفيقي وناقوا وصاحبك والصبر رضائي وحن صبر كامل وبكر مستاء وكنا هذا والصدق شفيقي شفيع علينا وحاول يردواي والجهاد خلق الى الجهاد وبطبيعه وعمل اصل ديني عقلي وحب كبس كريسين دينتنا والحسب اساسي جعل ما كسب سنة واحد من جعل قفل بون حديث أول ذكر حديثي وحوهني عبسنا إلهي حسن إلهي والعلم السلاحي وقوتي إلهي ورضا غنيمتي تجربة لي وأنا واحد برا كله وزود حرفتي إلى بروفيشنال كي ودلال كي وطاعة حسب يحشمت أساعد سلطة قبلك رحلت أبوه وين البرلمان waxaan ahay qof miisaan ku leh macquul ah ugu yaraan bulshada dhexdeeda ka meel dhalin kara suurto gelin kara ahdaafta ay higsanayso dowlad goboleedka koonfur galbeed taasi waxaan u leeyahay aniga ayaa jecel ama balwadda ay ii tahay inaan ahaado mid u taagan danaha dalka iyo dadka mar kasta iyo meel kasta iyo samada bixinta ama u gudbinta adeega bulshada Soomaaliyeed gaar ahaan koonfur galbeed waxaan doonayaa inaan door muhiim ah oo waxtar leh ka ciyaaro sababaha igu dhaliyay inaan isku soo taago xilka gudoomiyaha baarlamaanka waa la jecelo aan deegaanka iyo dadkayga u qabo una dabqanayo oo aan la rabo qorsho isbedel wax ku oga aragtayda haddaan halkaas ku joojiyo oo aan hoos u daadego waxaan soo bandhigayaa aragtidayda ku aadan waxqabadka oo qodobaysan
waxaan lagu magacaabaa fi qalad baarlamaan asalkeena maaha soomaali maaha waa luqad latina anglo latino kamid erga marka loo baarlamaan asalkiisana waxaa iska lahaa faransiis waagi hore baarlamaankood buqaal baarleyaa la dhihi jiray aftalyaanigan waxaa lagu dhaha baarlaa hadalka waa meesha anaga hadda aan ka dhaano shirka golaha kulanka golaha guurtida heshiiska sharci dejinta iyo shirfadhiga aqalka golaha eemiyaalka golaha wakiilada erebixin hadday magacaaba waa saas annaga hadda maanta marka waa u bedelanay golaha shacabka mila intaa markaan ka gudbo aragtidayda fadlo my vision aragtidayda ama garaadkeeda ama fikirkeena waxaan rabaa inuu noqdo baarlamaankan kan ugu fiican lagana barto maamul wanaag baarlamaan la muhdo oo la yidhaaho wallahi dowlad goboleedyada xataa aan signo cabaar inaga hormareyna aan signo dowladda dhexkiisa our mission howlgalkeena wanaajinta kordhinta iyo kor u qaadida awoodda fahamka xildhibaanka haddaan waxba la fahmo waxba ma socon karaa sidaas oo kale shaqaalaha baarlamaanka keliya kuma ekaanaya xildhibaano waxaa kusoo kordhi doono shaqaalaha kusoo kordhi doono dowladda ka fulinta ee kameeralinta iyo tayeynta baarlamaanka muddada u idmanya ka qaadasho doon wax ku ooda waxqabadka ku dhisan rabitaanka dadweynaha annaga dadweynaha la keenay dadweynihii rabitaankooda inaan ku shaqeyna diilaya intaas markaan ka gudbo strategic goals tabta ama xeeladda hadafka ama ujeedooyinka aan rabo in kor loo qaado awoodda baarlamaaneed la adeegsado waajibaadka dastuurka kor ha loo qaado laakiin si khaldama in la isticmaalo mar walba dastuurka in loo adeegsado mar walba ayaan raba in la abuuro lala joogteeyo xaalad dardargelin ah aqooneed hal abuur dhaqan iyo anshax wanaagsan leh dhismaha xarun waxbarasho iyo tababaro waxaana afriqada yaqaana CBST Central Parliamentary Study and Training xarun awood in loo tababaro karti iyo hufnaan in inta laga gaarayo muddada loo imay in la isku xiro lana dhiso saaxiibtinimada iyo kor u qaadida doorka baarlamaanka intaa markaan ka tago waxaa jira qayb la yidhaaho yani core values qiimo wax qiimaa uhuuda qiimaa inaan ku shaqeyna haddii ilaahayna waxaa idin rajeynayaa guul doorasha aan xasana doorta aad iyo aad aa umahadsantiin wabillahi tawfiiq wassalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakatu inaad kalsoonidiina oo buuxda isiisaan walaalihii waatiin waa idinka codsanayaa waxaan qabanaya waa idin sheegay waxna waa idhimay waa ku dari doonaa taasaan idinka codsanaya sifooyinka aad rabtaan inaad igu doorataan waxaa ka mid waxaan ahay dad nin ugu simaya dar alle nin daacad ah dulmidiin caadil ah dadaal badana howlkar ah lagu diirsada geesi ah faxal iyo nin geesi ah samir iyo dulqaad ah damiir lagu xishooda leh dareenka wadaniga ah weeyeeyo diintiisa kaasaa marka darajo iyo mudnaan iyo duco iyo kalsooni ugu darayna kaasaa mudanay intaas markaan ka tago waa soo gaaminaya khudbadayda aniga kalsoonida kalsoonidayda idinkaan idinka rajeynaya haddii ilaah yidhaaho ilaaha darajada bixiya idinka waxaad wadaan waa dadaal iyo sabab inaad la noqotaan darajada ilaaha bixiya intanaas musharax ah ninka ilaahay marin baa helaya marka waxaan jeclahay inaad saas ugu ogaataan darajada ilaah bixiyo waa laydin cabidinaya idinka isku kontrooli kartaan laakiin hal shay aan idinka codsanaya inaad daacad ka ahaataan sida kitaabka u marteen waxaan kaloo rabaa waxaan kalsoon idin rajeynayaa guul doorasha aan xasana doorta aad iyo aad aa umahadsantiin wabillahi tawfiiq wassalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakatu si boobsiis aan u dulmaro taariikh nololeedkay magacaygu waa xildhibaan cabdulqaadir shariif sheekuna waxaan ku dhashay magaalada muqdisho waxaan ahay muwaadin soomaaliyeed muwaadinnimadeydana waxaa caddaynteeda waa weli waxa weeye waa iga muuqata waxbarashadeeda haddaan u guda galo waxa weeye meelo badan oo soomaaliya ka mid ah dugsigayga hoose dhexe sare aan kaga soo baxay aan ku bilaabo magaalada Kismaayo oo ahayd iskuul meeshii ugu horeysa iskuul aan ka bilaabo
kadib magaalada muqdisho berbera ceerigaabo hargeysa haddana muqdisho intaas marka waxa weeye waa meelahaas o dhan waa meelihii aan soo maray iskuulladan kusoo dhigtay secondary waxaan kaga baxay sanadka ugu dambeey magaalada muqdisho marka kolley meelahaas aan soo marin waxay ii kordhiyeen oo kale waayo aragnimo iyo sababta ninkii dhul mana dhaayo la haliya waxaan ka qalin jebiyey kuliyaddii qaanuunka ama kuliyadda sharciyada ee jaamacadda ummadda soomaaliyeed ee gaheer sanadkii 1990 marka waxaan sharci yaqaan waxyaabaha marka igu kalifayna inaan isku soo taago jagadan ayaa waxaa ka mid ah maadaama tuulka ama qalabka looga shaqeeyo baarlamaanka baarlamaan waxaan u naqaana waa gole sharci dejin waay meesha sharciga lagu dejin lahaa waaye qalabka la isticmaalo lagu shaqeeyana waa shuruuc waaye marka maadaama aan dee takhasuskaygu yahay sharciyada waxaan arkay marka inaan jagadaas qabashadeeda inaan ka bixi karo hawshaasna hawl aan qaban karayta maadaama qalabka lagu shaqeynayo uu yahay wax takhasuskayga sideeda waxaan qof muslima oo aaminsan qadarta ogsoona wixii ilaahay uu qoray mooga wax kale inaanay dhacaynin ilaahay isagaa quraankiisa noogu sheegay allahuma maaliku lmulk tu'ti lmulka man tashaa wa tanzicu lmulka man tashaa anoo daa ogaya haddana laakiin maanta waxaan isa siiyey raje ah iyo hanweyne aan ku hanweynahay inaan kalsoonidiin aan heli doono aad isiin doontaan codkiina si aan idinkugu noqon mudan yaali marwooyin xildhibaan sharafta leh haddii aad ii doorataan inaan idin hogaamiyo inkastoo erayga hogaaminta xoogaas oo iska qaldan yahay waa afhayeen baarlamaan waa shaqadiisa la yaqaan waxay tahay oo hawsha si wadabay tahay hawl laga wada dhexeyso wadajir aan u qaban doono laakiin haddana haddii baa nasiib u noqdo inaan noqdo ninkii afhayeenka ahaa oo hadalka idiin kala qaybana wax idiin kala hagina waxyaabaha gore aan xooga saari doono horta waxaa igu muhiimsan wadajirka inaanse wadajir ah aan uga wada shaqeyno dhammaanteen ilaalinta dastuurka dowladda federaalka ee Soomaaliya iyo kan maamulka koonfur galbeed sababtoo ah kaasi waa shuruucda waddanka ugu sarreeya isla markaas aan u dhaarinay inaan ilaalin doono aan ku dhaqmi doono waxaan samayn doonaa aan abuuri doonaa jawi wada shaqeyn ku dhisan inaan dhowrno shuruucda waddanka u taal inaan wada tashi joogtaa mar walba aan wada samayno si aan ooga samata baxno wada tashigaas waxaan u samaynayo waxa weeye inaan ka samata baxno mar walba inuu dhexdeena uu ka dhasho ama uu ka xurto khilaaf iyo muran aan qaanuun ku dhisnayn dadku macnaha waa iskhilaafi karaan dadku waa murmi karaan laakiin khilaafkayna baarlamaanka markaan imaano khilaafkii muranka waxaan isku haysan inuu noqdo wax qaanuun ku dhisan wax sharci ka baxsan si aanayna isugu qabsan mar walba marka waxaan ka shaqayn doonaa inaan abuuro jawi wada hadalkeena uu noqdo mar walba oo dadkii wada tashtaan jawigaas kaasoo haddii aan abuuro nagu beeri doona inaan isu kalsoonaano inaan isqadarino istixgelino isla markaana aan noqono baarlamaan isku duuban oo isla markaasna role model u noqdo baarlamaanada kale ee waddanka maahan africa maahan xitaa laga yaabaa dunida intaga sababtoo maanta baarlamaanada waddanka ka dhisan haddaanu fiirino waxaan nahay baarlamaankii ugu horreeyey markaad fiirisaan baarlamaanada soo martaan ka dhabeeyey ballanqaadkii dastuurka ku qornaa oo ahaa in haweenku inay yeeshaan kooto u gaara oo aan laga taaban karin shuruucda kale waa ku qoran yihiin dastuurada kale waa ku qoran yihiin laakiin wixii in la qoro wixii waa in lagu heshiiyo waa sahlanta laakiin fulinteeda adag marka anagu waxaanu noqonay maanta ilaahay markhaati ka idinkoo aad markhaati ka tihin inaan noqdo eebe raalli ka noqdo mar walba qofku waxa weye waa qofka biniaadamka wax waa u baahan karaa الومو propone il Dio dispone قف قحوا وأبا أنكرا العبد يريد وأنا أريد وما يكون إلا ما أريد أنا قف قحوا وأبا أنكرا إلهنا وحوار بتاعي زواميد جوني لكن مرة بقدرت تير ربهم بعد هذا مركاتي إلهي مرة بكمت جاي وربيتاك كيجا دلال كي لكن بإذن الله الكريم أتو إلهي كرادي نقطة وحنقول دلالة إن سحر كسنما سومالي نما إسلام نما يكون جرتو waddaniyadna ay ku dheehan tahay inaan ugu shaqeeyo shacabka koonfur galbeed iyo shacabka Soomaaliyeed meel walba oo baahi ay ka jirto loo baahdo aqoonteeda iyo awooddeeda iyo kartida inaan ugu shaqeeyo ummadda Soomaaliyeed xukuumadda ama golaha fulinta ee noo dhisan ee aan wasiirka ka ahay wasiirka wasaaradda dekedaha gaadiidka badda aan ka ahay xukuumadda mar walba waxaanu kala shaqayn doonaa isla markaasna aan ku kontrooli doonaa kula xisaabtami doonaa siday u dardargelin lahaayeen dib u dhiska dhammaan kaabayaasha adeega bulshada iyo horumarinta mashaariicda mashaariicdaas oo lagu horumarinayo deegaanadan si aan uga faa'iidaysano khayraadka dabiiciga ilaahay uu ku manaysto dhulkeena
sidoo kale sugidda amniga iyo cadaaladda waa waxyaabaha ugu horeeya marka aan rabo inaan xoog inaan saaro inaan ka shaqeeyo sababtoo amni la-aanna waxa weye waa wax nooma soconayn cadaaladna soomaali meeshay ka bogto waa cadaaladda waaye meesha lagu kala tegay laga dagaalsan yahay waa cadaaladda marka biidni illahi alkariim sugidda amniga iyo cadaalad farido waa labada meel oo kale aan rabo inaan xoog inaan saaro waxaan si taxadar leh annagoo isku duuban kulligeena baarlamaanka annagoo wada socon oo hal cod ah aan mar walba aan la soconaynaa waxqabadka xukuumadda ee koonfur galbeed si joogto ah waxaana mar walba la xisaabtami doonaa insha allah isla markaana talo iyo tilmaamo aan u siin doonaa hadba wasaaraddii u baahan in hawsheeda la dardargeliyo sababtoo dadku waxaa isku si ma aha wasaaradda waxaa laga yaabaa inay hawsheeda waajibaadkeeda ka soo baxdo tu kalena ay ka gaarayso marka mar walba insha allah biidni illahi alkariim arrintaas waa ku dadaal baarlamaanka aan ku shiri doono aan ku shaqayn doono tayadiisa iyo inta uu la egyahay dhismihiisana insha allah mar dhow aan ku rajo weyna inuu bilaabmi doono dhanka xasanada iyo xuquuqda xildhibaanada la leeyahay macnaha xildhibaanka lama baari karo xildhibaanka lama qaban karo xildhibaanka lama joojin karo taas hadda mar walba waxa waaye waa inaan xasuusnaana wax u baahan in la isu sheego ma ahan sababtoo dastuurkeeda ku qoranta waana wax aan laga gorgortami karin wax aan la bedeli karin oo waxaan macnaha waaye aan dood iyo muran la gelin karin dastuurkay ku qoran tahay wixii dastuurkaas ku qoran sida sidiisi in loo fuliyo marka taas qodob walba oo dastuurka ku qoran xuquuqdaas dumarka ka sokow iyo dadka aan codka lahayn ama codkooda uusan gaarin meelii looga badnaa biidni illahi alkariim baarlamaankeena wuxuu noqon doonaa dadkii dadkaas xuquuqdooda u doodo hal mid waan idinka codsanaayo waana raba inaan xusuusiyo oo khudbadeeda aan jeclaan lahaa inaan hadalladeeda aan ku xuso waxaa ka mid a khudbadii uu sayidina abubakar u jeediyey muslimiinta markii ay loo doortay taladii oo inuu amiirulmu'miniin inuu noqdo uu yiri dadka bini aadamka waxaa ugu caqli badan buu yidhi ninka sharciga u hoggaansamo markaasoo abubakar sadiiq radiallahu canhu uga jeeday sharcigaas hoggaansamidda cabsida ilaahay mar walba waxaad ugu ogtihiin inaan u hoggaansamo cabsida ilaahay isla markaasna shuruucda iyo dastuurka noo dhigan aan siday yihiin inaan u taabageliyo inaan u raaco inaan u fuliyo haddii marka aad igu aragtaan fulintaas iyo ballantii aan qaaday sidii loogu taageer inaan u fulinayo walaalayaal waxaan idinka codsanaya inaad igu garab gashaan aad igu taageertaan haddii aad aragtaana dee waxaa qof bini aadan aan duldareelay iyo qaladaad aana lahayn male ilaahay uusan qalad ka dhicin waxaad tihiin dadkii isixi lahaa waddada iguga hagi lahaa sidaan horadii kugu sheegay marka ballanqaadkay horta kama badbadinaayo waxaan horta halkan ka ballanqaaday hal shay haddii aad kalsoonida aad siisaan biidni illahi alkariim kalsoonida aad siisaan sida aad ii siisa inaan u gudto oo ammaanadaas aad ii dhiibteen oo layidhi ammaanada cirka dhulkaa dida laakiin qofka insaanka isaga jaahilnimo awgeed u qaaday ammaanada aad ii dhiibteen sida ay tahay inaan idinkugu soo celiyo cadaaladana aan cadaaladana aan ku shaqeeyo cadaalad inaan ku shaqeeyo inaan ammaanada sida idinkugu soo celiyo maalin alla maalinkaan aad iga dareentaan in xisaabtan u baahanahay waxa weye waa diyaar ma in lala xisaabtamo haddii ay maanta aad garataanna codkiina aad kalsoonidiin aan heli waayo waxaan diyaar u ahay ballanna qaadaya cid allaale ciddii aad codkiina ku aamintaan kalsooni aad siisaan inaan la shaqayn doono sida waajibkayga aan u gudan doono sideedaba anigu waxaan ahay daljir baan ahay daljir daahsoon sanadkii inaan daljir daahsoonahay waxaan ku qaaday sanadkii 2004 anigoo aanan filanayn waddanka Sweden ayaa maalinta la soo wacay waxaa jirta abaalmarin sanadkii mar la bixiyo oo lagu magacaabo daljirka daahsoon ama geesiga sanadka oo aanan ogeyn wax aan ku mutaystay iyo sababta aan u mutaystay iyo cidda xitaa ay soo bandhigtay abaalmarintaasna oo laysiiyey abaalmarintaasoo markii laysiinaayey la ii sheegay sababihii loogu siiyay ay tahay abaalmarintaas waxaa la siiyaa sanadkii mar qof allaale qofkii bulshada u istaago inuu hawl u qabto isagoo aan hawshaas uu qabanayo aanan magac ka raadinayn maal ka raadinayn masab kale aan ka raadinayn laakiin ay ka tahay si voluntary le ah macnaha bulshaduna waxay ay u leedahay waxaa waajib ku ah in laga abaalmariyo sidaa darteed adiga hawlihii aad qabanaysay oo aadan iska warhaynin sidaad u qabanaysay ayaa warbixinadoodii markii uu soo gaaray hay-addii bixinaysa abaalmarintaasi waxaanu kuu garanay inaad daljirka daahsoon inaad tahay geesiga sanadka aad tahay abaalmarintaa marka wixii taa ka dambeeyey daljirkaa daahsoon in ahaa iska dhaadhiciya aniga aan absadeyda aan gelin waxaan ballan qaadayaa marka qof allaale qofkaad codkiina aad siisaan
inaan si daacadnimo inaan ula shaqeeyo anigoo ka dhabaynaya ballanqaadkaas daljirka daasoon ninka daljirka daasoon muwaadinka ahi ma aanu keliya hawshuu qabanaya hawl muuqata inay tahay insha allah haddaba muddadaas sanadka aan joog cid iga warhaysa hawsha aan qabanaya cid la socota male sidaan hawsheeda u watay biidni illahi alkarim inaan sidaas inaan u gudan doono hadduu ilaahay ka raali noqdo dhanka waxbarashadeeda markaan kasoo tago waxaan idinka ilaawa taariikh nololeedkayga luqadaha aan u baahan tihiin inaad wax ka ogaataan luqadaha ku hadlo waxaa weeye waa luqadda soomaaliga luqadda swedishka waa talyaaniga ingiriisiga carabiga iyo luqadda swaaxiliga ayaan ku hadlaa biidni illahi alkariim marka hadalka ma sii dheeraan waxaa leeyahay waqti 3 daqiiqa ku dhima laakiin waxaan jeclay saddexdii marka inaan idiin helo insha allah intaasi kadib waxa ay halkaasi waxqabadkiisa halkaasi ku sheegay maxamed nuur maxamed iyo ibraahim aadan buule oo iyagu u sharaxnaa gudoomiye ku-xigeenka koowaad ee baarlamaanka waxaan heshiisyo xagga iibka adeegyada aan la galin hay-adaha caalamiga ah kuwa maxalliga ah sida UNICEF, WFP, Save the Children, Turkey sanadihii 2006-2010 waa 2006-2010 waxaan ahaa transportation intaa wixii ka dambeeyey ilaa iyo hadda waxaan joogaa ama aan ganacsade ka ahay dalka Kenya iyo dalalka Africa iyo Asia fadhigeedu waa magaalada Nairobi iyo Muqdisho waxqabadkayga haddaan idiin sheego haddaad i doortaan oo ilaahay idiimo in halkan aan qabto mudanayaal iyo marwooyin dhammaan xildhibaanada sharafta leh waxaan idinku salaamayaa salaamta islaamka assalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu haddii aad i doorataan xilkan qaadaya inaan dhowri doono dastuurka koonfur galbeed Soomaaliya iyo shuruucda kale ee dalka u taalla ee dowladda federaalka sidoo kale waxaan idinka ballan qaadayaa haddii aad i doorataan xilkan waxaan si dhow ula shaqayn doonaa labada shirgudoon ee baarlamaanka koonfur galbeed ee Soomaaliya si uu u yaraado isqabqabsiga dhinaca shirgudoonka walaalayaal haddii aad i doorataan xilkan waxaan kaloo ka shaqayn doonaa labada shirgudoon si loo dedejiyo heer-hoosaadka sharciga dejinta lagu yaqaano baarlamaanka haddii xilkan aad ii doorataan insha allah waxaa shirgudoonka kala shaqayn doonaa si loo helo xuquuqda baarlamaanka uu leeyahay sidoo kale insha allah haddii xilkan aad ku guulaysto waxaan idinku ballan qaadayaa in aan idin daaliyo tababaro oo kor lagu qaadayo aqoonta iyo baarlamaanka koonfur galbeed Soomaaliya aniga oo la kaashanayo dowladaha aan saaxiibadanahay sida Kenya oo aan saaxiib dhow la ah insha allah haddii aan xilkan ku guulaysto waxaan xukuumadda kala shaqayn doonaa si nabad waarta looga helo deegaanada koonfur galbeed Soomaaliya haddii xilkan aan ku guulaysto insha allah waxaan xukuumadda kala shaqayn doonaa si loo ciribtiro dagaalka lagula jiro kooxaha nabaddiidka ah sida al-shabaab haddii aan xilkan ku guulaysto waxaan safar nabadeed ku kala bixin doonaa magaalooyinka waaweyn ee dowladda koonfur galbeed ee Soomaaliya haddii xilkan aan ku guulaysto waxaan si shakhsi ah uga qaban doonaa dib u horeynta deegaanada dowladda koonfur galbeed Soomaaliya insha allah la isfaali mafeed kaandina waa qabadkay walaalay wada koobiyiin marka waa qabadkay ku arki doontaan markii ay doorataan wabillahi tawfiiq Ibrahim Hassan Bulle waxaan ku dhashay degmada Tieglo 1974 dugsiga hoose dhexe waxaan kaga baxay degmada Tieglo dugsiga sare waxaan kaga baxay magaalada Muqdisho Mulqula School Secondary School waxaan kaga baxay magaalada Muqdisho mudan yahay marway aniga waxaan ahaa shakhsi ganacsi ah markii hore 2009 waxaan ku biiray baarlamaanka federaalka meelgaarka lagu soo dhisay Jabuuti ee Sheekh Shariif Sheekh Axmed madaxweyne ka ahaa waxaan noqday xogeeyay 550 baarlamaanka oo Soomaaliya ninkii uu ahaa xogeynta baarlamaanka markii lagu aamino sirta Soomaaliya baarlamaanka Soomaaliya markii loo aamino waayay ninkii lagu aaminay in loo dhiibo xogta baarlamaanka Soomaaliya waxaan ahaa ninkii kaliya kana shaqeynay 550 mudane
xogtoodii dhabtoodii dhibaatadoodii waxay qabaan ninka keliya gudbinayo. waxaan ahaa shaqsigii markay 2011kii baahida ka dhacday muqdisho dadka Soomaaliyeed ka soo qaxeen xildhibaanadii loo xilsaaray iyadoo waqtigaas aanay jirin qof ku dhiirin kara saacadaas intuu baxo meelaha qaar istigi kara for amni daraadeed for security raggii isku dayay una baabi'iyey naftoodii maalkooda u horay inay ummadooda badbaadiyaan. anoo xildhibaan qarana ayaan waxaan tagay meelaha aan laga baqaayo oo dhowr dhashiika adoo wadan tegi karin dhowr staff anoo wada la tegi jiray. mudan yaali marwey aniga waxaan isku soo taagay gudoomiye ku-xigeenka baarlamaanka koonfur galbeed. waxaan ahay qofka keliya aan siiyay imaad ka bixi kartaa aqoon iyo khibradna aad u leedahay maadaama baarlamaankan uu ka yaryahay baarlamaankii hore uu ahaa 550 maanta uu yahay 149 mudane. waxaan isleeyahay shaqsi u muuqda kana bixi kara firfircoodadeeda leh una taagan inuu ka baxo xilka gudoomiye ku-xigeenka baarlamaanka koonfur galbeed. waxaan la shaqayn doonaa gudoomiye walba ku guuleysta howshan ee baarlamaanka koonfur galbeed. waxaan si dheer loola shaqayn doonaa qof walba ku guuleysta halkaas. waxaan ahay qof daacad u ah howshiisii kartidiisii awoodeedana leh. mudan yaali marwey waxaa idinka codsanaya inaad codkiina isiisaan. haddaan ahay shaqsi u qalmo inaad codkiisa isiisaan. markaan imaaday magaalada Baydhabo anoo ah xildhibaan qaran waxaan fiiriyey bulshada Baydhabo sida xaalkeedu yahay. waxaan ogaaday inaysan jirin maanta wajiilaan halkaan ka muuqdo quruxda badan leh tashiilaadka aad hadda ku imaateen ninkii idin fudiyey fikirka ka yimid oo aniga. diyaaradahan hadda shaqaynaya ma jirin aniga ka hor gobol degmo la tago koonfur galbeed oo u dhow gobolka Ambay Bakool ma jirin diyaarada tago. qofkii u dhaadhiciyey hantidiisii maalkiisii naftiisu u huray diyaarnu ahaa inuusan ku degin diyaarad la yiri markii 40 qof joogta magaalada Baydhabo laba gaari mas 5 qof oo cadaad joogta ama Gurceel ama Kismaayo joogta la aado. ninkii hantidiisii maalkiisu ku baabi'iyey shirkadaha markay diideen inay tagaan magaalada Xuddur meesha la yiraahdo Waajib Tiyeego iyadoo diideen inay tagaan ninkii diyaarad lagu aaminay la yiri gal hadaad ku qaraxdo diyaaradaas kuma haysan laakiin waxaa ogaan doonaa diyaaradaas waa inay shirkada ka raacdaa. mudan yaali marwey awoodeedana waa leeyahay kartideedana waa leeyahay. anuu idin dhihi maayo jaamici miih kuliin kama soo bixin laakiin waxaan leeyahay khibrad baarlamaanka aan leeyahay. waxaan sugayaa codkiina khudbadan idinku badin maayo waxaasaan qabanayana dhihi maayo laakiin waxaan diyaar u ahay inaan baarlamaankan dhibkiisii dheeftiisa la qaybsado. ninkii xanuunsan ninkii jirada haddii dalku wax looga qaban waayo inaan la qaybsano dibadaha aan u dirno anoo la kaashanayo gudoomiyaha baarlamaanka markaa soo baxa. mudan yaali marwey warkiina ku badi maayo waxaan u taaganahay codkiina waaye waxaan idinka codsanaya inaad codkiisa siisaan. assalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu. ugu dambeyntii Aweys Xuseen Macalin oo kaligiisa u taagnaa qabashada xilka gudoomiye ku-xigeenka labaad ayaa isna halkaasi taariikh nololeedkiisa ka sheegay. waxbarashada dugsi dhexe dugsi hoose dugsi sare waxaan ku dhamaystay xamar ama magaalada Muqdisho. jaamacadda ummadda Soomaaliyeed waa ka baxay 90gii. waxaa kaloo intaa ii dheer macadkii maamulka iyo maaraynta sidam la oran jiray oo iyana aan ka qaatay shahaada diploma shahaada B.A. aan haysta ama Bachelor of Art. intaa kadib markii aan intaas ku soo koobo yani brief gaaban oo ku saabsan taariikh nololeedkayga sababaha ay u kalifay in aan baarlamaanka noqdo ama u tartamo gudoomiye ku-xigeenka labaad waxay tahay anigoo jecel in dhibaatooyinka saddexdan gobol masalan Baay Bakool iyo Shabeellada Hoose oo dhibaatooyinkooda waddanka ay noqdeen meelaha ugu dhibaatada badan deegaan ahaan haddii la yiraahdo haddii la yiraahdo xitaa dadkooda ay ku dacdaraysan yihiin
kasoo bilow sarkurus ilaa iyo maxay hayto saddexdan gobol meel kastoo ka mid ah. marka saa darteed ayaan isu arkay in barnaamijyadaasi aan kaalin ka qaadan karo ama fikirka geysan karo. hase yeeshee mudanayaasha sharafta leh waxaan si xujmad ku jirtaa idinkaga codsanayaa in aad codkiina isiisaan, rajaynayna macnaha in aad siin doontaan hadduu ilaah yidhaahdo. okay, waxyaabaha marka aan rabo in culayska la saaro kana shaqeeya waxay tahay kow, nabad sugidda ammaanka iyo xasiloonida oo kale inaan priority-ga siino, sababtoo ah sidaan la wada soconno nabiyullaahi ibraahim calayhi salaam markii uu maka ama xaram ashariif uu dhameeyey dhismaheedii wuxuu ka ducaystay alla, wuxuu yidhi allahuma ijcal hada baladan aaminan oo dhan. yacni meesha waxaa kaaga muuqataa in wax waliba amni uu uga horeeyo. haddaan amni la helin micnaheeda nolol ma jirtaa. xasilooni iyo nabad haddaan la helin nabad ma imaanayso. maanta o dhan waa sidoo wareeganaya macnaha. kow, marka waxaad arkaysaa saddexdaa gobol degmooyinkooda qaarkood oo kale inays isku furnayn oo ay jirto micnaha ciriiri aada iyo aada u badan. marka fikir ahaan ama cid kasta aan la kaashano ee saameyn ku yeelan kartaa isu furidda degmooyinka ama maxay hayto goboladan, si qofkii baydhaba uga baxa baabuurka u raaca si toosa ugu tegi karno xamara meeshuu doono ama dhinac bakool ha noqoto ama shabeellada hoose. priority koowaad waa sugidda amniga iyo xasiloonida, peace and stability. labo, ilaalinta sharciga marka iyo kala dambeynta dowladnimo. intaa kadib waxaa kulanka soo gabagabeeyey gudoomiyaha ku-meelgaarka baarlamaanka cabdulaahi aadan mursal, iyadoo maalinta beryahna la filayo inay dhacdo doorashada gudoomiyaasha baarlamaanka koonfur galbeed Soomaaliya. isbeedkii heerfaadey musharaxiinta sidaas oo kale waxaan doonaynaa hadduu alla yidhaahdo barrinto in la soo xaadiro saacadda markay tahay 9 ama 3 saac subaxnimo si ay noogu bilaabato doorashadii in maaragtay aan lagu galno. waxaan u mahadcelinayaa guddiga doorashada iyo maaragtay gudoomiyahooda iyo maaragtay ku-xigeenadii maaragtay hawsha la soo daadeeyey iyo maaragtay musharaxiintii isbiidka fadhiyey. marka waxaan idin leeyahay waa mahadsantihiin. waa inuu darmiin 3 saac ama 9 saac sugi. doorashadana bokiska in laga baxo ama geeska ah waa qalad. in dhexdiisa ay koobanto haddii xaqiiqa uu ka baxo bokiska geeskiisa waa qalad, haddii tiklisi waa qalad. marka si saxaad yani inuu voodkiina u dhaco ayaa maaragtay la doonayaa. haddana maaragtay waa mahadsantihiin. shirkana waa noo xiran yahay sidaa iyo nabadgelyo iyo bariwalba. abshir maxamed nuur Mandela, Royal TV, Baydhabo.